akhlaaqda wanaagsani waxay baabiisaa xumaanta siday xumaantuba u baabiiso akhlaaqda wanaagsan. qurux aan haybad lahayn waa sida ubax udgoon aan lahayn. haddii aadan wanaajinin doorashada wadadaad camalka u maraysid, ilaahay ayaa kugu sallida dhiblowyaal. farqiga u dhaxeeya fulinimada iyo geesinimadu ma aha wax kale aan ka ahayn inaad wadnahaaga sugto. alla maxaa ka qurux badan xanuun aan xumad lahayn, waa raaxada ay ku jiraan kuwa dadaalay. haddii aad farxadda adduunyo jeceshahay, ku dadaal caafimaadkaaga. haddii aad jeceshahay liibaanta adduunyana, ku dadaal akhlaaqdaada. haddii aad jeceshahay inaad ku waarto dunidana, ku dadaal caqligaaga. haddii aad dhammaantood jeceshahayna, ku dadaal diintaada. mu'minku ma aha ka aan ilaahay caasiin, laakiin waa ka marka uu ilaahay caasiyo u soo laabtaa. gabadha caaqilada ahi waa sida malag laba baal leh oo mid ka mida ninkeeda ayaa ay ku qaadaa, halka gabadha nacasta ahina ay tahay shaydaan laba gees leh oo mid ka mida ninkeeda ay ku disho. onkod aanay la soconin biyo ma soo saaro caws, sidaasoo kalena camalaan ilaahay loo barax yeelin ma soo saaro khayr. ha ku dadaalin inaad noqoto taajir, laakiin ku dadaal inaanad noqonin faqiir. oo farqiga u dhaxeeya faqiirka iyo taajirku waa qanaacada. dadka sharafta jeceli ma khiyaameeyaan cidna, sidaasoo kale been ma sheegaan kuwa naftooda ku kalsooni. jacaylkaad rabbigaa jeclaataa wuxuu kuu hogaamiyaa nabadgelyo, jacaylka aad dadka jeclaataana wuxuu kuu hogaamiyaa murugo, jacaylka aad gabadhaada jeclaataana wuxuu kuu hogaamiyaa waali. marnaba ha dulmiin midkaa awood yar si uusan kuu dulmiin midkaa awood weyni. haddii uu ogaa lahaa ka wax dulmiyaya kan uu dulmiyayaa inuu haysto rabbi difaacaya, ma uusan dulmiyeen. cid wax dulmisaa ma jirto, haddii ay jirtona ilaahay ayaa ay inkirtay. maxaa ka dhibaato badan guurka ninka caaqilka ah marka uu guursado gabadh doqon ah? maxaase ka dhibaato badan gabadh caaqilad ah haddii ay guursato nin doqon ah? abaalmarinta wanaaggii aad samaysay waxaad ku heli doontaa qiyaamaha, laakiin cuquubada xumaantii aad samaysay waxaad ku heli doontaa adduunyada. isdhuldhigga iyo isdhibrintu waxa ay kuu qaadaa kor, laakiin isla weynaanta iyo santaaggu waxa ay kuu dhigaan hoos. 3 baa sharka u hooy ah: ibliis, gabadh iyo maal. 3na khayrkay hooy u yihiin: caqli, gabadh iyo maal.